Kolestaroolku ma xun yahay? Toddobo khuraafaad ah oo caafimaadkaaga wax u dhimaya. Kolestaroolku waa erey bixin laga baqo, qayb ahaan sababtoo ah dhibaatooyinka la xidhiidha. Kolestaroolku waa mid ka mid ah dhinacyada sida aadka ah loo fahmay ee caafimaadka iyo nafaqada. Tobanaan sano, waxaa lagu eedeeyey wadno xanuun, istaroog iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad oo badan. Caqiidada guud waa in dhammaan kolestaroolku xun yahay iyo in ka fogaanshaha cuntooyinka kolestaroolka sare ay ilaalin doonto caafimaadka wadnahaaga. Laakiin taasi run ma tahay? Waxaa la joogaa wakhtigii si toos ah diiwaanka loo dejin lahaa oo loo beenin lahaa khuraafaadka qaarkood ee ku xeeran kolestaroolka si loo fahmo si sax ah, oo wakhtigeeda caawimo caafimaad loo qaado si loo hubiyo inaysan u horseedin dhibaatooyin. Khuraafaad, kolestaroolku waa xun yahay. Mid ka mid ah fikradaha khaldan ee ugu weyn waa in kolestaroolku uu waxyeelo leeyahay. Dhab ahaantii, kolestaroolku wuxuu lagama maarmaan u yahay jidhkeena. Beerkayagu waxa uu soo saaraa kolestaroolka sababtoo ah jidhkeenu waxa uu u baahan yahay soo saarida hormoonka, fitamiin D iyo shaqada maskaxda. Jahwareerka ku xeeran kolestaroolku wuxuu horseeday khuraafaadyo badan oo sababa cabsi aan loo baahnayn iyo doorashooyin cunto xumo. Dad badan ayaa ka fogaada ukunta, caanaha iyo dufanka caafimaadka qaba sababo la xiriira fikrado khaldan, halka ay si indho-la'aan ah u raacaan cuntooyinka dufanku ku yar yahay oo laga yaabo inay waxyeello ka badan tahay wanaagga. Khuraafaad, cunista cuntooyinka dufanka leh waxay kordhisaa kolestaroolka. Cilmi baaris casri ah ayaa muujisay in kolestaroolka cuntada uu saameyn yar ku leeyahay heerarka kolestaroolka dhiigga ee dadka badankiisa. Jidhku waxa uu nidaamiyaa wax soo saarka kolestaroolka marka aad cuntid kolestarool badan, beerkaagu waxa uu soo saaraa wax ka yar iyo lidka ku ah. Muddo sannado ah, dadka waxaa loo sheegay inay iska ilaaliyaan ukunta, shellfish, iyo caanaha sababtoo ah waxaa ku jira kolestarool. Halkii aad ka jari lahayd cuntooyinka hodanka ku ah nafaqada, diiradda saara cunto dheellitiran oo leh dufan, fiber iyo borotiin caafimaad leh. Khuraafaad, kolestaroolka sare waa sababta kaliya ee aad u qabto cudurrada wadnaha. Iyadoo kolestaroolka sare uu noqon karo arrin halis u ah cudurrada wadnaha, maaha sababta kaliya. Dad badan oo leh heerarka caadiga ah ee kolestaroolka ayaa weli ku dhaca cudurrada wadnaha, halka kuwa kale ee kolestaroolku sareeyo ay ku nool yihiin nolol dheer oo caafimaad leh. Khatarta cudurka wadnaha waxay ku xiran tahay arrimo badan oo ay ku jiraan caabuqa, hidde-sidayaasha, cuntada, qaab nololeedka iyo caafimaadka guud. Halkii aad ku mashquuli lahayd tirooyinka kolestaroolka oo keliya, fiiro gaar ah u yeelo calaamadaha sida cadaadiska dhiigga, triglycerides, iyo caabinta insulin. Khayaali, kaliya dadka caylan ayaa leh kolestarool sare. Qaar badan ayaa u malaynaya in kaliya shakhsiyaadka caylan ama aan caafimaad qabin ay qabaan kolestarool sare, laakiin taasi run maaha. Suulka kolestaroolka. Dadka khafiifka ah ama jirkooda firfircoon sidoo kale waxay yeelan karaan kolestarool sare sababtoo ah arrimo hidde ah. Xaalad la yiraahdo familial hypercholesterolemia waxay si dabiici ah u keeni kartaa heerarka kolestaroolka sare, iyadoon loo eegin miisaanka jidhka. Tani waa sababta baaritaannada caafimaad ee joogtada ahi ay muhiim ugu yihiin qof walba, ma aha oo kaliya kuwa u muuqda kuwa caylan. Khayaali, kaliya statins ayaa hoos u dhigi kara kolestaroolka. Statins ayaa caadi ahaan loo qoraa si loo yareeyo kolestaroolka, laakiin maahan xalka kaliya. Xaaladaha qaarkood, statins waa lagama maarmaan, laakiin sidoo kale waxay la yimaadaan waxyeelo iman karta sida murqo xanuun, dhaawac beerka iyo arrimaha garashada. Isbeddelka qaab nololeedka sida cunista cuntooyinka hodanka ku ah fiberka, jimicsi joogto ah, yaraynta qaadashada sonkorta habaysan, iyo maaraynta walbahaarka waxay si weyn u wanaajin kartaa heerarka kolestaroolka. Khayaali, ukuntu waxay keentaa kolestarool. Ukunta jaalaha ah ayaa jiniyo laga dhigay 10 sano sababtoo ah waxa ku jira kolestaroolka. Si kastaba ha ahaatee, daraasaduhu waxay muujinayaan in ukumuhu aanu si weyn kor ugu qaadin heerka kolestaroolka dhiigga dadka badankiisa. Waxay ka kooban yihiin nafaqooyin lagama maarmaan ah sida toline, fitamiin D iyo borotiin. Dhab ahaantii, ukumuhu waxay kordhin karaan hadal kolestarool wanaagsan, waxayna wanaajin karaan isku dheelitirnaanta kolestaroolka guud. Dambiilayaasha dhabta ah ee kolestaroolka sareeya waa cuntooyinka la warshadeeyey, dufanka trans, iyo isticmaalka sonkorta badan, maaha ukun. Khayaali, cuntada ku salaysan dhirta waxay baabiin kartaa kolestaroolka. Dad badan ayaa aaminsan in u beddelashada cuntada ku salaysan dhirta ay ka takhalusi doonto kolestaroolka jirkooda. Iyadoo cuntooyinka dhirta aysan ku jirin kolestarool, beerkayaga ayaa si dabiici ah u soo saara kolestarool sababtoo ah waxay lagama maarmaan u tahay badbaadada. Cunto si fiican loo qorsheeyey oo ku salaysan dhirta ayaa faa'iido u yeelan karta caafimaadka wadnaha, laakiin weli waa muhiim inaad hesho dufan caafimaad leh, borotiin, iyo nafaqooyin lagama maarmaan ah oo ku filan si ay u taageeraan isku dheelitirnaanta kolestaroolka guud.